waxaan ognahay in agaasimihii FBI-da James Comey shaqadii laga fariisiyey oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka cayriyay shaqadii waxaa soo baxaysa in James Comey uu qoray warqad laba bog ka kooban oo faahfaahsan taas oo wax lagaga qoray ama James Comey uu wax kaga qoray kulan dhexmaray isagii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump warqadaas oo ay ku qoran tahay dad James Comey la shaqeynayay oo kamid ah FBI-da ayaa iyagoo magacooda qaranaya soo gudbiyay warqadaas waxa ku qoran dadkaas oo arkay warqadaas waxay sheegayaan inay ku qoran tahay in madaxweynaha kulan uu la yeeshay agaasimihii hore FBI-da James Comey madaxweynaha oo codsaday in kulankaas loo kala tago isaga iyo agaasimaha kadibna ka codsaday agaasimaha in uu iska dhaafo ama joojiyo baaritaankii lagu hayay la taliyihii hore ee madaxweynaha Mr. Flynn oo kadib markii uu shaqadii uu ka tegay oo macnaha istiqaaladii soo dhiyay guddiga ilaalinta arrimaha sirdoonka ee Congress-ka waxa ay dalbadeen in qoraalkan gacantooda la soo geliyo haddii ay helaan qoraalkan micno intee leeg ayuu u sameynayaa dabcan micno weyn ayuu sameynayaa hadda waxa la hayaa waa dad soo arkay qoraalka iyo dad loo akhriyay oo dhageystay kaliya ayaa macnaha warka la hayaa uu ku kooban yahay laakiin haddii gacanta loo soo geliyo oversight committee-ga ama maaragtay guddiga korjooga ee macnaha baarlamaanka Mareykanka haddii loo soo gudbiyo warqadan wax weyn baa iska bedelaya sababtoo ah waxa ku qoran wuxuu noqonayaa wax macnaha aan ahayn kutani waa la yidhi laakiin wax cad oo la hayo taas oo haddii waxa la sheegay uu ku qoran yahay ay suurtagal tahay in ay soo baxdaan eedeymo loo jeedinayo madaxweynaha in isku dayo inuu is-hortaag ku sameeyo baaritaan madax bannaan oo socdo oo weliba lagu hayay madaxweynaha iyo tiimkiisii xilligii doorashada ku jiray xiriirkii kala dhexeeyay dalkaasi Ruushka waa maxay tillaabooyinka uu guddiga ilaalinta sirdoonka Mareykanka ee Congress-ka uu qaadi karo haddiiba ay helaan in arrintani ay dambi tahay waxay qaadi karaan laba arrimood way qaadi karaan haddii arrintani ay dambi tahay dabcan waxaa lagu soo oogi karaa madaxweynaha dambigaasi haddii ay ku caddaato inuu ku lug lahaa inuu is-hortaag ku sameeyey waa jabin sharci iyo dambi ayay noqonaysaa tan kalena dabcan waxaa laga yaabaa inay usii gobol xaadho macnaha tallaabooyin kale oo baarlamaanku ay ka qaadi karaan madaxweynaha oo kale sida in ay ku dhaqaaqaan oo kale in ay diyaariyaan ama ay gobol xaar u noqoto haddii lacala ay mustaqbalka dambe timaado in laga keeno